calafkan oo dhan 400 hektar ayaa taageerada maaliyadeed laga helay LLRB kaasoo 250 hektar wax xafiiska horumarinta xoolo dhaqatadu ka beeray galbeedka Goday halka 150 hektar oo kamid ah macadka cilmi-baaris deegaanku ay ka beereen Deefayd iyo Beercaano ayaa 56 gaari oo calafkaasi loo raray 14 degmo kamid ah gobolada Shabeelle Afdheer Nogob Qorrax iyo Jarar iyadoo gaarsiinta calafkaasi iska kaashanayaan xafiiska horumarinta xoolo dhaqatada deegaanka iyo xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka deegaanka haddaba raridda calafkan oo noqonaya wareegii labaad ee gurmadka la gaarsiinayo degmooyin kamid ah shantaasi gobol ayaa waxa goobtaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta xoolo dhaqatada deegaanka mudane Maxamed Gacala iyo wasiir ku-xigeenka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka mudane Saadiq Cabdiqaadir Khaliif maanta waxaan raraynaa inagoo ka kooban xafiiska DRM-ka iyo xafiiska cilmi-baarista iyo xafiiska xoolaha calaf anagoo u rari doono ilaa 14 degmo oo ka kala tirsan 5 gobol calafkaasi waana markii labaad feeskii labaad ee calaf la rarayo oo macnihii kal hore ayaan mar rarnay gobolka Daabo waxay noqon doonaan waxaa jirtay si guud responsible-aankii la soo saaray tiimkii isku dhafka ahaa ee ka koobnaa xafiisyada deegaanka oo dhan ku soo sameeyeen qiimeyntii deegaanka oo dhan abaarta si ay u saameysay ayaa waxaa loo kala saaray categories ama qaybo maanta marka waxaan u raraynaa calafkaas degmooyinkii ugu darnaaday xagga abaarta saameynta ba'an ay ku reebtay sidoo kale waxaan rajaynaynaa insha Allah feeska saddexaad in asana u rarno degmooyinka kale ayagana ay abaaraha aad ku saameeyeen bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan joognaa Beercaano joognaa waxaa laga rarayaa calafka xoolaha oo loo rarayo 15 degmo oo ah degmooyinka hotspot waradaaska ama degmooyinka ay calaf la'aanta xoogani ka jirto ay saameysay abaartan waxaan ognahay si guud deegaankeenu inay abaarihii saameeyeen oo roobkii dayrta maaragtay uu fail garoobay sidoo kalena jilaalkii uu bilow yahay marka tan waxaan hadda raraynaa wareegii labaad calafka xoolaha looga jawaab celinay si loogu badbaadiyo laf dhabarta bulshadeena oo ah 3 meesi ee loodii iyo geeli iyo arigi dadaalkan wuxuu ka yimid iskaashi ay maaragtay xafiiska xoolaha cilmi baarista iyo mashruuca LLRB iyo anagoo qayb ka ahayn raritaankiisa inay bulshada la gaarsiiyo xafiisyadaas dadaalka galiyay inay soo saaraan maaragtay maad balaaran baan u celinaynaa sidoo kalena maamulka halkan mashruuca gacanta ku hayay mashruuca galbeedka Goday degmada Beercaano halkan waxay noqotay hadda hub aan deegaanka maaragtay ka qoodinayno gaar ahaan calafka xoolaha markay imaato abaartan waxaan cabsi badan ka qabnaa inay saameynteeda hadda intan uu ka badaato waayo hadda in ka badan 150,000 neef ayaa maaragtay hadda u dhimatay abaarta darteed xoolihii goboladan dhex joogeen intoodii badan gobolka Faafan bay isugu tageen oo waxa marti gelisay jigjiga agaarkeeda oo maaragtay calaf iyo biyaba ay ka raadsadeen waxaana keenayo inay maaragtay deegaanka intiisii kale 9 gobol kale intiisa badan deegaanka inuu markii laga reebo city Faafan inay abaartani si xun ay u saameynayso dhanka kale mudane Jamcaale Axmed Yuusuf Maarey ku-xigeenka macadka cilmi-baarista deegaanka ayaa sheegay in doorkooda sii xoojin doonaan iyo ka duulaya ujeedooyinka macadku ku leeyahay isla markaana bulshada fariin u diray ah in wax la soo saarto dawladuna taageero kasta sii doonto si looga baaqsado abaaraha sii adkaanaya annagoo xafiiska cilmi-baarista oo iskaashanayna maaragtay xafiiska xoolaha iyo mashruuca LLRB waxaan ka wada shaqaynaynay in calaf laga soo saaro maaragtay West Goday degmada Beercaano iyo degmada Cadaadle gaar ahaan Deefayd calafkaas oo maanta maaragtay muxuu ahaa annaga cilmi-baarista iyo xafiiska xoolaha iyo xafiiska DRM oo iskaashanayna la doonayo in degmooyinka abaartu ay aad ka u saameysay oo 14 degmo ah loo raro oo la gaarsiiyo aan ku rajaynahay mataqaanaa in muxuu ahaa maaragtay wax badan uu ka tari doono in xoolaheennii oo maaragtay abaartu ay aad u saameysay hadda uu calafkani maaragtay maadaama uu calaf improved uu yahay oo tayo fiican leh inuu maaragtay nafaqadooda wax badan uu soo celin doono abaartana uu wax badan ka tari doono
marka waxaan ku rajaynahay mataqaanaa abaarta ilaahay inuu mataqaanaa uu inaga soo qaboojiyo dadkeena macnaha waxaan inta ku dhiirigelinaynaa inay wax beertaan oo macnaha tusaale ahaan dawladda kaligeed waxna ma beeri karto waxna ma soo saari karto waa inay jiraan cooperatives iyo iskaashatooyin wax soo saara oo shacabka laftigoodu bulshada laftigoodu ay ku baraarugto in wax la soo saaro in intay beertaan dawladdu way ka caawinaysaa wax kasta oo dadaal laga geysan karo haday siir tahay haday wax kala tahay haday fertilizer tahay diyaar bay la tahay dawladdu inay mataqaanaa dadka shacabka la taageero laakiin fariintaan rabay inaan halkan ka gudbiyo waxa weeye shacabkeenu waa inay ku baraarugaan oo macnaha maaragtay aynu ahmiyadda dareeno wax soo saarka beeraha inaynu maaragtay wax tabcano in wax la soo baxno baahida inagu baa gacmeena kaga bixi karna mar haddaan dhulkiina haysano biyihiina haysano macnaha inaan wax beerano oon tabcano waa mas'uuliyad inagayna ugu dambeyn calafkana ayaa dhanka farsamada iyo waraabinta uu door ku lahaa mashruuca horumarinta waraabka Shabeelle oo isagu dadaal ugu jira inuu sii ballaariyo doorka uu ku leeyahay soo saaridda wax soo saar kala duwan isagoo ka duulaya hadafka loo yagleelay mashruucana maadaama uu haysto qalab ku filan maxamed cumar ceelaabe telefishinka caalamiga SRTV mashruuca galbeedka goday iyo tulada deefeed ee degmada Cadaadle